maanta oo bisha October tahay 29 sanadka 2023 waxaa laga daahfuray magaalada Muqdisho xarun ama laan u furtay bangiga loo yaqaan Siraat Catalin Bank oo laga leeyahay wadanka Turkiga. Munaasabadan waa mid taariikhi ah waxa ay noqotay markii ugu horeysay ee bangi caalami ah laga furo dalka Soomaaliya muddo ka badan 50 sanadood. wuxuu noqon doonaa bangigaasu bangi bixiya adeeg ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn, bangiyada, hay'adaha caalamiga ah ee horumarinta intaba adeegyo ay aad ugu baahnaayeen. waxaa la siiyey bangigan oo magaciisa loo yaqaan Siraat Catalin Bank loo ogolaaday ruqsadda inay dalka uga shaqeeyaan ama ka furtaan laan ama branch bishii Luulyo ee sanadkii 2022 kadib markii lagu qancay inay buuxiyeen dhammaan shuruudaha u yaala bangiyada ajaanibta ah ee doonaya inay dalka maalgashadaan oo ka shaqeeyaan. waxa aan ugu bushaareynaa ganacsatada Soomaaliyeed in uu soo kordhay adeegaasu. waxa uu fasaxayaa inay fududeeyaan waxaan loo yaqaano trade financing ama soo dejinta iyo dhoofinta badeecada. waxa uu ku yaalaa wadanka bangigan wadamo badan oo caalamka ah. bangigani wuxuu qeyb ka yahay dalada ama bahda bangiyada ee la isku yiraahdo Siraat Finance Group oo ka howlgala in ka badan 20 wadan oo caalamka ah oo ku leh 27 branch oo ka baxsan wadanka Turkiga laga leeyahay. taas waxay siinaysaa fursad aad iyo aad u wanaagsan oo ah inay la yeeshaan xiriir ganacsi adduunka oo dhan qeyb kastuu yahay. fursadaas oo u soo kordhay maanta ganacsadeena iyo dalkeena. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan la wadaago dadweynaha Soomaaliyeed fursadda ama bangiga u soo kordhay. waana soo dhaweyneynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.